iyadoo inta badan dhibaatooyin loo geysto ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Koonfur Afrika ayaa dhanka kale ganacsatada Soomaaliyeed waxa ay fursad shaqo siiyeen boqolaal qoys oo u dhalatay dalka Koonfur Afrika. boqolaal South African ayaa ka shaqeeya goobaha ganacsiga Soomaalida ay ku leedahay dalkani Koonfur Afrika, taa oo fursad u noqotay qoysas badan oo u dhashay dalkani. goobaha ay ka shaqeeyaan muwaadiniinta South Africaanka ah ayaa waxa kamid ah dukaamada cuntada, maqaayadaha, hoteelada, biibitooyinka, kuwa oo gabi ahaanba ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed. TV-ga Universal ayaa u kurgalay arrimahaasi, waxaana goobo kala gedisan kula kulanay shaqaale u dhashay dalka Koonfur Afrika oo fursado shaqo ka helay ganacsatada Soomaaliyeed. annagoona weydiinay sida ay u arkaan fursadaha shaqo oo ay siiyeen ganacsatada Soomaaliyeed, iyagoona sheegay in ay si weyn ugu faraxsan yihiin arrintaasi. Igama lami Nomikaya, sebenzela amaSoomaaliya apha. Ndineminyaka 10. Ndaqala ngo-2005 until now. amaSoomaaliya ngabantu abaright. magacaygu waa Nomikaya, waxaan ka shaqeeyaa dukaankan Soomaaliyeed, waxaan ka soo shaqeynayay laga soo bilaabo 2005 ilaa hadda. aad ayaan ugu faraxsanahay shaqada ay siiyeen. waxaan ka xumaadaa marka aan maqlo Soomaali ayaa la dilay ama la boobay, waayo nolosheyda ayaa ku xiran. Soomaalidu waa ay fiican yihiin, wax dhibaato ah kalama aanan kulmin. Soomaalidu waa dad wanaagsan. Igama lami Ndungiyonela, hlala eStellenbosch. Ndisebenza apha emaSomaliyeni, ndiqale usebenza ngo-2012 and magacaygu waa Yonela Vini, waxaan deganahay tuulada Stellenbosch ee duleedka magaalada Cape Town. waxaan ka shaqeeyaa dukaankan Soomaaliyeed, waxaan ka soo shaqeeyay 2012 ilaa iminka. Soomaalidu waa dad wanaagsan, waxayna shaqo badan u abuureen dumar badan oo South African ah, waana uga mahadcelinaynaa. waa jelay Somalian. Shariif Xasan Camey iyo Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi oo kamid ah ganacsatada magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika ayaa wax ka weydiiyay faa'iidooyinka ay ganacsatada Soomaaliyeed ku soo kordhisay dalkani Koonfur Afrika iyo muhiimadda ay leedahay in la shaqaalaysiiyo dadka madowga Koonfur Afrikaanka ah, gaar ahaan dumarka. dadkan Soomaalida wadanka ay soo gashay inta badan dadka South Afrikaanka ah ee wadanka degan ee wadanka xaq u leh waxa ay siiyeen fursado shaqo oo mataqaanaa in dukaamadii Soomaalida laga shaqaaleysiiyay, qaasatan naagaha ayaa fursado shaqo la siiyay. maxaa ku doorantay naagaha inaad siisaan? naagaha waxaan ku dooranay maadaama naaguhu ay yihiin dadka mataqaanaa ugu daacsan oo mataqaan rag ay ka daacsan yihiin. dad badan oo shaqo la'aan ahaa inaan shaqo u sameynay. waxyaabaha kale aan ku soo kordhinay waxa kamid ah dadkan berigii hore inayna heli jirin meelo sahlan oo ay wax ka iibsadaan. Xasan Kaafi Maxamed Shire, telefishinka caalamiga Universal, magaala xeebeedka Cape Town, Koonfur Afrika.